Canada waa dal ku yaala waqooyiga America oo leh taariikh hodan ah. Waa kan dulmar kooban oo ku saabsan taariikhda Canada. Dadkii ugu horeeyay ee degay dalka Canada waxa ay ahaayeen dadka asliga ah ee Indigenous Peoples, kuwaas oo yimid in ka badan 12,000 oo sano ka hor. Qoomiyado badan oo First Nations ah ayaa deganaa dhulalka Canada muddo dheer. Sanadkii 1497 John Cabot oo Talyaani ah balse matalayay boqortooyada Ingiriiska ayaa gaaray xeebaha bariga Canada. Jacques oo Faransiis ah ayaa 1534 bilaabay inuu baaro webiyada St. Lawrence. waxa uu aasay sheegashada Faransiiska ee dhulka Canada. 1608 Samuel D ayaa aasaasay magaalada Quebec oo noqotay xarun muhiim ah oo ganacsiga iyo mustacmarad Faransiis ah. 1763 dagaalkii 7 sano kadib, Ingiriiska ayaa ka guuleystay Faransiiska oo helay dhulkii New France, taasoo qayb ka noqotay gumaysiga Ingiriiska. 1867 Canada ayaa noqotay dal ismaamula oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska kadib markii la aasaasay Confederation iyadoo oo la mideeyay 4 gobol: Ontario, Quebec, New Brunswick iyo Nova Scotia. 1982 dastuurka Canada ayaa laga dhigay mid gooni ah oo dalka siiyay madax-bannaani buuxda oo ka madax bannaan Ingiriiska. Dhaqanka iyo siyaasadda Canada waa dal federaali ah oo leh 40 qaybood. Waxaa lagu yaqaanaa inay tahay dal kala duwanaansho weyn oo dhinaca dhaqanka leh. Afafka rasmiga ah waa Ingiriisi iyo Faransiis. Waxa ay leedahay nidaam dimuqraadi ah oo hoos yimaada boqortooyada Ingiriiska. Canada waxa ay caan ku tahay nabadda, kala duwanaanshaha dadka iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha. Taariikhdoodu waxa ay muujinaysaa horumar iyo isbeddello waaweyn oo ku yimid bulshada iyo nidaamka dunida. waa warbixintii Khalid Baashe Waare.